بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadku ma qaadi karaan inta ka badan wax badan baa la akhriyay aqdiga nikaaxa dha Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa meel badan buu ku sheegay aqdiga ama guurka ama guriga aayaadkiisa qudradiisa awoodiisa lagu garto ku dhigay oo maartay ku soo daray meelaha qaar koodna cibaarad wuxuu adeegsaday meelo kale uu soo adeegsanin quraankiisa wuxuu ku sheegay sida walaalkeen uu akhrinayo wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa ayatka ilahi awood ilahi ku tusinaysa waxyaabaha lagu garto guurka kamid aha ilahi wuxuu isticmaalay cibaarad cajiiba hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ilahi subhanahu wa ta'ala haweenku dhar bay yihiin idinkuna dhar baad u tihiin waa kalimaad kooban laakiin luqad carabi markii la yiraahdo aad baliiq u away aad iyo aad u xeel dheer way haweenku dhar bay yihiin idinkuna dhar baad u tihiin bal haweenka la hormariyay bal meeshaas oo la soo hormariyay haweenku dhar bay yihiin kadib rag la sheegay culimadu ma ana argano kitaab qorahay laakiin rag mushaafahan wax noo akhriyeen la dhihi jiray jaa caalim ah inta loo naxariisto Masri aha محمد سالم عطية لديه جرى مثل محمد عطية سالم ومسريها عبد الرشيد وكرمان رجينا حرم النبوي كأخريج شري ومارتي كتبتها كأخريج شري جامعة إسلامية أنا معلن كها كلمة آيات ده مركو تفسيرين هي يوارن عجيبة كفسرين كل أنت كنت تأرك ما أنا أرك بحول ماشان إن السبة هي بآيات وعضيس لكن لبضة باهي آدو كلا فوقين ما بين السماء والأرض سويين إنكم حان لهلين رجع دمرك يا باهي بدن يا إنكم حان ليش دمرك باهي بدن ودوس إليه حشوط وسويتشي كسر تذكر بنانا كو عيسان لهين أساسا ليش رزمي لكن شيخ عكسي وكذا وحول الرجع باهي دي سعد قبل وفر بدن أنت دمرك باهي ده قوان وير طيب رجع باهي ده زي صدر تبى دمرك اللي سهر مريال وليه وين در بيدين مركا كدي بالي يكون در بدوتي baahida ragga see u batay dumarku waxa laga yaabaa baa leeyahay in shahwa ama awlaad bas ninka uga baahdo xoolaheeda way cuni taqaana dahabkii ka gadan gurigeeda way nadiifsan raashinkana way karsan taqaana laakiin ninka intaan shahwa iyo caruurba la gaadhin ba xoolo kasta oo haysta ma cuni yaqaan xooliis gaaja aan jeebka maanta noogu jirayaan laakiin reer hadduu yeesho keenan ku cunsiyo way ogasha 3,000 oo maanta aan qadayno ku sameeyay keenan dadka wuu ogolya laakiin haddii asaga loo daayay ma cuni karo guriga ma nadiifsan karo wixii oo dhan marka noloshiisii oo dhan ma hagaagsanaa iskaabulada markuu yahay kurtuma dhan buu leeyahay wax kurtumaha ka jaro hagaajiyo u baahan yahay dharka wax u hagaajiyo u baahan yahay iskaabulada guriyahay degan yihiin hadaa tagtid dibna ma ugu soo noqon baad meeshii saaka ka kaceen maartay waa halaqyo galeen baad moodaysaa habeenkii buu ku soo noqon laakiin gabdho ay gurigooda way hagaajisanayaan marka baahida ragga zaa'ida marka halkaasna waxay aayada muujinaysaa qiimaha uu guurku leeyahay sidoo kale waxay quraanku uu ilaahay ku sheegay guurku masteru rizqi inuu yahay waxyaabaha faqriga laga baxay in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli ilaahi subhanahu wa ta'ala u guuriya hada fuqara yihiin ilaahay baa qani ka dhigaya marka ikhwati fillah marka guurku inta waxa ka sii la sii socota dhulalkan aan joogno waxa ugu fiican ee dadka lagu xifdii kara caruurta waxa weyn waa guur qofka duu guursada ama gabadha loo guuriyo wax badan baa nolosheeda hagaagaya marka waxaan leenahay guurkaas iyo reerkaas isguursaday wiilka iyo gabadhaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo waxaan leenahay ducada nabiga barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa baynakum fi khair ducadaas aan ugu ducaynayna jaahiliyadii arrafa wal banin wiil iyo caani dhijreen laakiin sharcigu wuu bedelay inaad tiraahdi marka barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa baynakum fi khair waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala subulaaliyo نبينا عليه الصلاة والحديث سان كختمه بعيون قف كدو جورسده دينتي النسبة كامل نقول إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتقل نصف الباقي إكمال كدينة النسكي بقى فرسانة إذا قف كدو جورسده مركب حنلنا لبضاس قف إلهي سبحانه وماشي هذا ما أنت جور كودي أنه أساسني جور اللي برارة ما أرتي أولاد صالحة ورب جودي دين تودي والد جود وبارك إلهي سبحانه وتعالى هكبره جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته